الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين: خصلتان من كانتا كتبه الله شاكرا صابرا: من نظر بدينه إلى من هو فوقه ونظر بدنياه إلى من هو دونه فاقتدى به كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر بدينه إلى من هو دونه ونظر بدنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني walaalayaal, ilaahay baa mahad iskale jala wacalaa. ilaahay jala wacalaa koonkan inuu baaqi noqdo ilaahay wuxuu sabab uga dhigay waa bibaqaa'i diin. hadba intay diini baaqi noqoto, wanaag oo dhan wuxuu baaqi noqonayaa intay diini baaqi tahay. shar oo dhanna waxay baaqi noqonaysaa inta diin la-aani ay baaqi tahay. diini inay baaqi noqoto, maxaa dhahay, diintu waa nidaam ilaahay xaggiisa ka yimaado subxaanahu wa tacaala. ilaahay waa nidaamku ambiyada usoo dhiibay, falidaalika nidaamkaas mar walba uu baaqi noqdo, wax alla wixii wanaagsanaa, amnigii, cadaaladii, istiqraarkii, wanaaggii, sharaftii, wax walbaa baaqi noqonay. diin markii la waayo oo diin la waayana saan la soconno, saacadda qiyaamuhu waxay ugu dhacaysaa dadka ashraaru lkhalqi la yidhaahdo, adduunyada ugu sharta badan. qof ahlul iimaana aanu joogin ayay saacadda qiyaamuhu u dhacaysaa. falidaalika diini inay baaqi noqotana ilaahay jala wacalaa wuxuu aasaas uga dhigay bibaqaa'i juhdi alambiyaa, dadaalka ambiyada, khaasatan dadaalkii nabigeena calayhi salaatu wassalaam calaa nahjihi sala allahu calayhi wasalam. tartiibtiisii iyo nidaamkiisii ay diintu baaqi ku noqonaysaa. juhdiga nabiga sala allahu calayhi wasalam, ilaahay subxaana wa tacaala juhdigaasay diintu baaqi ku noqonaysaa. mar kasta oo dadaalkaa la helo, maadaama ummaddan ilaahay sharfay oo ilaahay jala wacalaa ummaddan uu qiimeeyey. ilaahay jala wacalaa ummaddan wuxuu ku qiimeeyey, wax kale kuma qiimeyn salaad badan iyo soom badan iyo xaj badan, bal waxaa lagu qiimeeyey dadaalka qaaliga ah baa ilaahay siiyey. sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusaa wa ciisaa an aqiimu ddiin. ilaahay awaamirta tashriiciga ah ee uu ina siiyey ayaa waxaa ka mid ah, sida ilaahay salaada uu inoogu sharciyeeyey ayuu juhdigan qaaligaana ilaahay ina siiyey. juhdigaas diintu ay ku soo noolaanayso 4 nebi ama 5 nebi oo ulul casmi ah, juhdigoodii baa ummaddan la siiyey. sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan
ilaahay jala wacalaa wuxuu sharci inooga yeelay ama rabbulciza inoo diray inagu waajibiyey wixii lagu amray nabiyullaahi muusa maa wasaa bihi nuuxan nabiyullaahi nuux iyo waladii awxaynaa ilayka wixii adiga aanu nabi maxamedow kugula dardaaranay wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiin waa shanta nebiga ululcasmiga ah juhdigoodii waa ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan siiyey khayriyada ama sharaafada ilaahay subxaana wa tacaala ina siiyey waa iqaamatu ddiin say diini u noolaataa say diini baaqi u noqotaa say diintu kasheena ee laabteedna uga muuqataa walaalayaal falidaalika sidaa la ajligeed dadaalka diinta yaan ka qaadanaynaa inaan inagoo dhan eegno maadaama shantaa nebiga ululcasmiga ilaahay jala wacalaa tadxiyaadkoodii uu naga rabo tadxiyaadkii ay sameeyeen ee diinta ay u sameeyeen shantuba ilaahay subxaana wa tacaala ululcasmigu ka dhigay marka diin markii la yidhaahdo ama dadaalka diinta inaan mar walba eegnaa loo baahan yahay xadiiskan hadda aan akriyay nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay khaslataani man kaanata qofka laba sifo isku arka qofka muslimka laba sifo hadduu isku arko katabahu allahu shaakiran saabiran qofka ilaahay shaakirna wuu qoraa saabirna wuu qoraa labadaas sifo inagoo dhan aan iska eegno waa qofkee man nadara bidiinihi ilaa man huwa fowqa qofka diintiisa mar walba ka eegta dadka isaga ka sarreeya ka tadxiyo badan ka dadaal badan ka yaqiin badan ka sifaad badan wa nadara bidunyaah ilaa man huwa duunah adduunyadiisana ka eegta dadka isaga ka hooseeya adduunka waxaa la rabaa inaad ka eegatid dadka adiga kaa hooseeya dadka dariiqa yaanyada la fadhiya tamaandhada la fadhiya ee muuska la fadhiya cambaha la fadhiya waxba haysan haddana reer dhan iyagu wax ma quudiyaan ilaahay baa wax quudiya laakiin adiga hadalkaa nabiga sala allahu calay wasalam inaad fahantid la doonaya diin inaad ka eegatid dadka kaa sarreeya adduunyadana aada ka eegatid kuwa kaa hooseeya qofku hadduu saas sameeyo faqtadaa bihi buu yiri nabigu markaa kadib uu ku daydo magarad katabahu allahu shaakiran saabiran qofka ilaahay shaakirna wuu qoraa saabirna wuu qoraa marka su-aal baa halkan taalla dadka naga sarreeya ma dadka manaabirta halkan fadhiya ee membarka soo fadhiisanaya la annaga mar walba dadka aan mar walba eegayno waa nebi maxamed iyo saxaabadii nacam cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu ardaa wuxuu yihi man kaana mustanan falyastana biman qad maat ninka doonaya dad inuu isu ekeysiiyo rag dhintay ha isu ekeysiiyo ulaaئika asxaabu muxamadi sala allahu calayhi wasalam kuwaas waa saxaabadii nebi maxamed kaanuu khayra hadihi اlumma ummaddan kuwii ugu khayrka badnaa bay ahaayeen haddii quluub la yidhaahdo ugu qalbi wanaagsan haddii cilmi la yidhaahdo cilmi gun hoos u qodan ismayna kalifi jirin qoom waxay ahaayeen ilaahay u doortay suxbada nebigiisa sala allahu calayhi wasalam walidaalika diin markii la yidhaahdo maxaa dhaha ninka nool fitno aaminka ma aha qofku mar hadduu nool yahay nas'al allaha alcafwa walcaafiya annagoo dhan allahna ilaali marka iyagu iimaan bay la dhinteen dadkii la doonaya marka inaan eegno mar walba sifaadkoodii tadxiyaadkoodii yaqiintoodii waa saxaabada waa asxaabu maxamed wey dhinaca kale u rogo nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi waman nadara bidiinihi ilaa man huwa duunah qofka diintiisa ka eegta dadka isaga ka hooseeya diintiisii wuu ka eeganayaa dadka isaga ka hooseeya anigu waa xajiye hebel ma xajin
anigu 40 baan baxay hebel 40 ma bixin halkaasuu bareegi ku qabanaya anigu waa soo cumraystay hebel ma cumraysan anigu bishii 3 maalmood baan baxay hebel ma baxo anigu 5 salaadood baan tukadaa hebel ma tukado anigu waa soomaa hebel ma soomo marka qofku markuu diintiisa mar walba ku dhereeriyo dadka isaga ku hooseeya maxaa imaanaya walaalayaal wa nadara bidunyaah ilaa man huwa fawqa adduunyadiisiina wuxuu ka eeganayaa dadka isaga ka sarreeya adduunkii dadkaasuu ku mashquulsan yahay daartan goormaa la dhisay tanna goormaa la dhisay kana goormuu waxelay shalay annagaa naqaano waxba ma haysan goormuu waxelay waxaasuu maantoo dhan kaamiradiisu ay qabanaysaa maantoo dhan waxaasuu ku fakeray daartani ma jirino goormaa la dhisay ninkan gaarigan goormuu la yimi marka waxaa imaanaysuu yiri qofku hadduu diintiisa ka eegto dadka ka hooseeya adduunyadiisana ka eegto dadka ka sarreeya maxaa imaanaya fa asafa calaa maa faata wixii dhaafay oo dhan buu ka xumaanaya wuxuu leeyahay intaanu rag waxaanu wax la qaybsan lahayn intaanu khuluus ku jirnay oo diin adduunyo diin ka daba ordaynay ama diin barashadeed ku mashquulsanayn waa kuwa raggii ragga ahaa adduunyadii la yimid waday isku shubeen dhulkaasay tageen waxbay la yimaadeen waxaasuu isugu sheekeynaya marka qofku markuu sidaa noqdo xataa wuxuu ka calaacalayaa baa layidhi waktigii uu diinta bartay ee waalidkiisa ay diinta bareen waktigii baa laiga lumiyey buu leeyahy aabba iyo hooyo waktigii waa iga lumiyeen waktigaa hadday matis iyo english iyo oo hadday bari lahaayeen waxaas maanta rag baan wax la qaybsan lahaa ninkaas markaa muxuu qiimeeyey wax ilaahay aanu qiimayn wuxuuna ilaahay jalla wacalaa uu qiimihii ka qaaday wax ilaahay qiimeeyey waxaa dhaa ilaahay jalla wacalaa qofka kuma qiimeeyo walaalayaal ashyaadan aynu arkayno ilaahay qofka wuxuu ku qiimeeyaa ilaahay diin buu ku qiimeeyaa ayaxsabuuna anamaa numiduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun waxay moodayaan kuwa maalka iyo caruurta aanu siinay inaanu iyaga hormarinay maaha maydan garan buy miisaanka ilaahay rasuulkiisa qofka ay saarayaan waxaa ma aha miisaanka ilaahay rasuulkiisa waxay qofka ku qiimeynayaan waa hadba diinta uu haysto waa hadba ilaahay jalla wacalaa intuu cilaaqo la leeyahay allahayna fahamsay walaal qaaruun sidaan la soconno markii xoolihiisa uu la soo baxay dadku 2 kooxood bay noqdeen xoolihii markuu banaanka ula soo baxay dadkii materialka ama yaqiintoodu maadada ay ahayd maxay yidhaahdeen waqaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunyaa yaa layta lanaa misla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim shalaytadeedii haddii nala siin lahaa waxa qaaruun la siiyey waa nin dheef weyn u saaxiiba wixii maadadiisibuu banaanka soo saaray laakiin kuwa iimaanka iyo macrifada ilaahay la siiyey maxay yidhahdeen warweylakum hawaabu llaahi khayrun liman aamana wacamila saalix warhoogiina wax ilaahay xaggiisa jira ayaa u khayr badan qofka iimaanka iyo acmaasha leh marka walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiyo waxa u qiimo badan ilaahay jalla wacalaa diin buu inagu qiimeynaya diintaada marka waa inaad mar walba ka eegataa adiga dadka kaa sarreeya dadkaasna dad kale maaha waa nebi maxamed iyo saxaabadii inaan yaqiintoodii eegno inaan fikirka uga dayano inaan itijaaha uga dayano inaan cawaaqifta daakhilka uga dayano caadifada inaan uga dayano qasadka inaan uga dayano
من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. sheekh saciid khan hadda ka hor 1989 1989kii taariikhdan miilaadiga ah magaalada Karachi isagoo bayaan ka jeedinaya wuxuu yidhi haddii ummaddu ay qasad ka dhigato juhdigii nabiga sallallahu alayhi wasallam, juhdiga nabiga calayhi salaatu wasalaam hadday qasad ummaddu ka dhigato, ilaahay jalla wacalaa markay ugu yartahay 5 shay buu ilaahay siinaya. waa markaan qasad ka dhigano. ilaan hadda ninka dukaanka haysta muxuu qasad ka dhigtay dukaankiisa soo maa, ninka beerta haystana beertiisa. nin walba meherada uu haysto ayaa qasad u ah, maqsad u ah. waxaa laga yaabaa quraacdii in loo keenay, qadadana in loo keeno. quraacdii saaka ma cunin ninkan, meeshay taalla, qadadiisina meeshay taalla. markii la weydiiyo maxaa dhacay baa le markaasuu leeyahy meydaan arkeen hawsha ii taalla. gaajadiisii oo dhan waa ilaabay, maxaa dhahay qasad baa hor yaalla. haddii ummaddu ay qasad ka dhigato juhdiga nabiga sala allahu calayhi wasalam, oo macnuhu waa maxay? taqdiim amr addiin min amri daruuriyaat, ummaddu ay ku shaqayso danta diinta, daruuriyaadkooda ay ku hormariso, danta diinta ay hormariyaan. sheekhu wuxuu yihi ilaahay jalla wacalaa ummadda wuxuu siinayaa awalan nusrat ullahi wa maciyat ullahi, ilaahay baa u gargaaraya macoodana noqonaya. waa gargaar. qur-aanka gargaarka cibaadada kuma soo aroorin. waa laga yaabaa aayadaha dacwada ka hadlaya dadaalka diinta iyo cibaadada way ku jirta, gargaarka wuu ku jira. laakiin gargaar haddaad aragtid waa dadaal diineed. walayansuranna allahu man yansuruh ina allaha laqawiyun casiiz. ilaah baa yidhi waa u gargaarina kuwa noo gargaara. in yansurkum allahu falaa gaaliba lakum wain yakdulkum faman da aladii yansurukum min bacdi. haddii eebba idiin gargaara yaa idinka qaalib noqonaya? wax idinka qaalib noqon kara ma jiro. awalan waa nusrat ullahi wa maciyat ullah, ilaahay macaaga noqonaya. laa takhaafa inanii macakuma asmacu wa ara. allah jalla wacalaa markuu nabiyullaahi muusa iyo haaruun uu dirayay ayay yidhaahdeen waxaan ka baqanaynaa ninkaasi inuu nagu xadgudbo oo nagu durduriyo oo dhib noo geysto. laa takhaafa buu yidhi, ilaaha baqanina, inanii macakumaa, anaa miciina ah. asmacu wa ara, waan maqlaa waana arkaa. lagama yaabo. maxaa dhahay? fooda fircoon gacanta rabbi way ku jirtaa. koonkan wax dhaqaaqi kara male, amarka ilaahay buu ku dhaqaaqaya. waxa taaganna ilaahay amarkiisuu ku taagan yahay. shayga labaad ee ilaahay jalla wacalaa dadku hadday qasad ka dhigtaan juhdiga nebiga, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siinayaa xayaatadooda ayaa barakoobaysa. cumriga ayaa ilaahay u barakeynaya, waktigaa loo barakeynayaa, gurigaa loo barakeynaya, wixiisoo dhan baa barakoobaya. waa ballan. walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard. dadka iimaanka ee alla kacabsiga laga helo, ilaahay ballan wuxuu ku qaaday in barakada cirkiga dhulka loo furayo. arrinta saddexaad ee ilaahay jalla wacalaa dadku hadday qasad ka dhigtaan juhdiga nabiga calayhi salaatu wasalaam, arrinta saddexaad ee ilaahay uuna siinaya waa maxay? waxaa ilaahay uuna siinayaa waa min adilla ila alciza, macnaha dullinimadu ilaahay kaa saaraya, casiiz buu kaa dhigaya. cizi ayaa ilaahay ku siinaya, cizi aan cashiiro u baahnayn, nasri aan hub u baahnayn, nolol wanaagsan oon maado u baahnayn. ilaahay baa ku ballan qaaday walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin. cizi ilaahay baa iska leh, rasuulkiisa iska leh, mu'miniinta iska leh. ilaahay bilaal ciziga uu siiyey ma ahayn cizi walaalayaal maado ku xiran. yaa ciziga uu bilaal siiyey wuxuu ahaa waa cizi diin. meesha nebigu uu yihi fatxu maka fuul oo halkaa ka aadan waa kacbada horteeda.
quraysh oo dhan odayaashii waa ka caroodeeno waxay yidhahdeen bal eega addoonkii yaraabu halkaas saaray annagiina. laakiin bilaal tadxiyaadkii uu diinta u geystay buu nebigu qiimeeyey calayhi salaatu wassalaam. ciziga marka waa inaan fahanaa, cizigu iimaanka iyo acmaashuu la socdaa. cizigu waa ciziga sidaa ku yimaada, allahayna fahamsiiyo. cizun bilaa cashiira ilaahay ku siinayaa, nasri aan hub u baahnayn baa ilaahay ku siinayaa, nolol wanaagsan oo aan maado u baahnayn baa ilaahay ku siinaya. nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi diintan waxay gaari doontaa xaysu balaqa alleylu wannahaar, meesha habeenkiiyo maalintu ay gaaraan. ilaahayna ka tegi maayo guri dhoobo ah ama dhowr ah ilaa diintaasi ay gasho bicizi casiizin aw bidulli daliil. ilaahay jalla wacalaa cizi uu wax ku cizeeyey ku galaysaa, qaar ku cizeeyo qaarna uu ku duleeyo. ilaahay jalla wacalaa cizigaas uu ku cizeynayaa kuwii islaamka qaatay ee diinta qaatay, kuwan kaleetana ilaahay uu duleynaya oo jizye iyo yaraan iyo dullinima ilaahay ku salladay. marka laakiin qofku uu diin laga helo ilaahay baa cizeynaya. arrintaas afaraad waa mustajaabu dacwa, ducadeenna aqbal noqonaysa. waa daaciga ah ama qofka dadaalka diinta markuu qaato ilaahay jalla wacalaa ducadiisiiba aqbal noqonaysa. yaa allah markuu yidhaahdo ilaahay baa wuxuu leeyahay labeyk ya cabdi, addoonkeygiio maxaad rabtaa, maxaad doonaysaa. laakiin walaalayaal maanta ummaddii ducadeeda aqbal maaha. meel walba aragnaa maanta ummaddu waa ku dulaysan tahay, meel walba ducadeeni la aqbali maayo. maxaa sababu ah? waxaa sababu ah qasadkii baynu ka tagnaa. ummaddan ilaahay waxbuu ku qiimeeyey, sharaftoodii bay ummaddu ka tagtay. ummuna caaisha radia allahu canha waxay tiri markaan guriga aan nabiga sala allahu calayhi wasalam aan soo galay, nabigu uu gurigeyga soo galayba waxaan wejigiisa ka arkay mulug saaran calayhi salaatu wasalaam. nabigu nagama hadlan bay tiri, waa weysiistay, mimbarkuu fuulay, faxamida allaha wa asnaa calayhi, ilaahay buu mahadiyey waana ammaanay. markaa kadibna wuxuu yihi wardadow, ilaahay wuxuu idin leeyahay war wanaagga isfara, war diinta ka shaqeeye. qabla an tadcuu falaa ujiiba lakum, watas'aluunii falaa acdiikum, watastansiruunii falaa ansurukum. intaysan saddexdaa shay gaarin dadaalka diinta ka shaqeeya. haddaad diinta dadaalkeeda ka shaqeyn weydaan maxaa idinku imaanaya? wakti aada baryi doontaan aanan ducadiina aqbaleyn. xaajadiinaad doonaysaan inaan idin qumiyo, idin qumin maayo. cadow waa meel walba idinku gumaadayo, doonaysaan gargaar, idin gargaari maayo. famaa zaada calayhina xataa nazl. nabigu hadalkaa waxba kuma darin calayhi salaatu wasalaam. nabigu calayhi salaatu wasalaam intaasuu kaga soo degay mimbarka. dadaalka diinta haddaad ka shaqeyn weydaan saddexdaasaa idinku imaanaysa, ciqaab baa imaanaysa. markaasaad alla baryaysaan, ducadiina aqbal maaha. xaajadiina doonaysaan in la idin qumiyo, la idin qumin maayo. cadowbaa meel walba idinku gumaadayo, gargaar baad rabtaan, laydin gargaari maayo. caalamul islaam maanta inagoo dhan waynu ognahay nidaamku miyuu ku sakhiran yahay mise waa ku salladan yahay? waa tasliid wey. nacam, maxaa ummadda maanta halkaa dhigay? dhiigga adduunyada ugu raqiisan waa dhiigga qofka muslimka ah wey. malaayiin baa inta la gumaadaa, laa yataxarik saak, wax dhaqaaqi kara aanu jirin, qof dhaqaaqi kara ma garad. maxaa dhahay ummaddu wixii shalay ay qiimaha ku lahayd ayay ka tagtay. istajiibuu lilahi walirasuul idaa dacaakum lima yuxyiikum. ilaahay rasuulkiisa ajiiba markay idinku yeeraan waxaa nolosha idin siinaya. ummaddu wixii nolosha siinayay ayay ka seexatay, ka tagtay. markaasaa rabbulciza maanta waa adigay ku halaagsamaysa aanu ilaahay u aabayeelin. falidaalika sidaa la ajligeed saddexdaa arrimood nin walba inuu eegaa loo baahan yahay walaalayaal. waa wax maanta ummadda yaalla. hadalkaas ma aha hadal. nabigu weliba wuxuu yihi ilaahay jalla wacalaa wuxuu idin leeyahay buu yihi calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baa sidaa inal sidaa la yeelaya, taasaa dhacaysa. arrinta shanaad haddaynu qasad ka dhigano juhdiga nabiga calayhi salaatu wasalaam,
إلهي سبحانه وتعالى وحي نسينا يا نقدر يا مستجاب الدعوة دعينا على أقبليه وأنت أفراد دعاء ذي على أقبليه أنت شناد نوام حي المحبة في قلوب الخلق إلهي خلقه يسوء ونبى قلوبته إذا إلهي كجعل السنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بدك إيمانك يا أعماش إسكاله إلهي جل وعلا قلوبته خلقه أيام محبة الله إلهي ما كجعلاني مركز جبريل ويري لي هبل بان جعل جعلوا مركز سمد جبريل ودواقي لي ملائكة إلهي هبل جعل ثم يوضع له القبول في الأرض مركز صادوك هنا إلهي قبول ودقيا ذلك لك تشوفين جعلاني مركز ولا ليال قصد إن نكبق أن جهدك النبي عليه الصلاة والسلام قلت أرنت 40 بان بحي أفر بلود بان بحي وحاسوا لما أرنت ومقصد وشرافة هذه الأمة وقيمة هذه الأمة ومقصد هذه الأمة ولا ليال الله أنا فهمسي لكن غير من قصة كدغانينا غير من قصة كدغانينا علماء وحيل لهم غير مقصد كدغانا يجهد النبي عليه الصلاة والسلام وحجو قصة كدغانا يجهد مركز يقينتي سو اسبدشو سورة قل من نقونيس إن جهد النبي عن قصة كدغانا إذا يقينتي أنه اسبدلين ومن لم يعتقد به لم ينتفع شيء هدالنا اعتقاد نفعي سميه ليس هذه الدين كان قلبنا أن ننقلن أو أن يقينصن إن تكون بانيس مدرد مركز أمد منفعة ذي ليس أغلى شيء مركز أور وامحي قور من قصة كبيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم محالي صحابة قصة كودي انت بدلون هرت قلوبته بدلون يقينته بدلون حكم بدلون جهدي يكون بدل عليه الصلاة والسلام جهدي ما انت اننا أبتنا وحبك عن نفسيا منسيا كيها لينا أنا وحوين وأركين إنه هلي أي النبي صلى الله عليه وسلم كم بدلي يقينته صحابة إلا المركي صحابة صلاتنا لغو مسود دجن صوننا لغو مسود دجن حجنا لغو مسود دجن نبي صلى الله عليه وسلم شنطة عيضات بالله وأمر التعريف بعلماء وراديان شنطة عيضات إلهي بأسكو بري مقرد سورة علق كجرتا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق آياتها سإلهي جل وعلا كلام مقع بآخر بالليلي الله إنسان كحنجير حنجير بيجا كعبورة حنجير ونطفة ثم علقة حنجير بيجا الله بداية الإنسان بالنبي اللي توبري عليه السلام شنطة آيات كتب المحال الغير يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر استهدوا ضدك ودقوا إلهي وينك يسكال هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالعبي أي سبب النقطي إن أمد قلوبته دون أيس بد الشيء سبنا النبي صلى الله عليه وسلم وترقيه هبين يا مال ولا لا جهدك صلاة مجر صون مجر حج مجر محا أمد لبره يصدح عمل باجر ودعوة هي تعليم هي خدمة مكة صلاة قلال بالكتمة لكن هبين ابنه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ما أنت وحال غيابة أكتنا سوسايتي أما مجتمع إنه أكتبنا ما أنت دعوة إلا إنه تصوحير أو إسكا ضعيف أو الغيرة هذو وإسكا فرد كفاية بدك قار هدي أقمان أو قار هدي استعلان دعوة أنت كلا أنا قد عيسى لكن دورة المقدد اللي مفهمين هذا عي وحول الباء وحالوا يدي قفك يسوي يقانه جهد أنبياء جهد كما هدلكروا جهد أنبياء ولا تكون مركو برتو أما فقه برتو أما السيرة برتو فني برتو لكن فني كذلك دينته وكدوية وفنون تضحية اللي برتو ما فني قفكو اسكبرتو اسكفهمو لا
وفن ربها قفك إنه تضحية لي ماذا فلذلك السيدة لأجل يبقى دعوة علماء المركي أنا لي ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شيء أن واجب كتان نقولن السوى لا يلمها السوى محين هو نقولن هو واجب ما دام ولا ليال صلاة دي أي واجب تهي إلا يسست واجب بين نقطة إيمانك هو فرض عين جهد جيس محين نقولن ما فرض كفاية لا فرض عين فرض كفاية وحال إرادة لا سمح الله نبا حافظ يعني كبير يولي طبعا إننا نغميدا مايداي أو كفنتي وقلسي أو كتكتي أو قبر يجي سوعاسي إنك أنت إنك لو نغن عيا وفرض كفاية لإرادة لكن أنا الإيمان كي فرض عين بقى فرض كفاية فرض عين يا فرض عين إيمان كي وأنا فرض عين يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وركوا إلهي رمية أنا إيمان كم آذي ستد ما درجة المطلوب كاهي زيادة إيمان كاهي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا حدي أرميان بالقول النبي صلى الله عليه وسلم صحابة بالقول حدي أرميان سيدا ذنكو أرميسان أصحاب محمد إيقوا يهنون الهاي مركا معيارك أما مستواها إيمانك اللي نقرب ومستواها ولا لا مستواها سالة نقربها مستواها سمرك المحيط باعيها كم انتبه لقاربا إن إيمانك كشقيسي كم انتبه لقاربا يدينك إن أذكر قادد إن إلهي جل وعلا قلبك وكحر ما سوى الله قلبك وإن كوير هذان وإلهي جل وعلا كوين هذا هذا الير معها صحابته محيك الشغيين مجالسة إيمانك أي ولا الأفري اللي باتنك الساعة إيمانك وحذر كيسا معاذ بن جبل عبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم أجمعين سيرة إيوه وركالي ربي أن عن ساعد رميني كالي ربي أن عن ساعد رميني سألوا على وضعي الليل يا رسول الله نكي عبد الله بن رواحة إيمان الساعة وكهضلية إيمان كاجيب إيمان ساعد أبدل نبي أنتو ولا عديب ويرى الله ونحرستو عبد الله بن رواحة محد عي وحوج عليهي مجالسة إلهي وملائكته وغفانه مجالس الإيمان مجالسة ما نمر بالليلية أن كشقينه ومجالسة ما نمر بأنبضنه وبيئة تكون بيئة الإيمانية وبيئة سائنة إلى لنيسة بيئة دعان ما إلى شمكرنا ولا لا بيئة إيمانية علماء إليهين ما نمر بأن هضلنا ما نمر بإلهي كهضلنا وددك بيئة أغيرنا ما هو حد بالعظمي وزمن النبي صلى الله عليه وسلم محسو جرينوي بيئة سودتك أغيرين بيئة سوينينين بيئة سوكو مشكو صنايين ما انت بيئتك لي أي الشدن بيئة كلا الشدن بيئة إيمانية ما انت مجتمعين الحديث مشدنا مع سببها حسب الله إنك داعية سيدة لفتقي سوحن هدان وحوين وأركين وإن أعرقنا وحن حاجديني وإن أعرقنا مسؤولية ديني وإن أدوك الباحدة أدوك أركتها ولا لا سيدة لأجل جيبا مركب بأدس أنكوينه المدو حيلين محل الإيمان وقلبك محل الإسلام وقفك تشركي سوى جوارحنا محل جهد النبي صلى الله عليه وسلم وحواس الإنسان وقفك درين كيسا أما الدرين مياشا حضر كاغا مقل كاغا فكر كاغا عرق كاغا درين كاغا أيها هي دلالك النبي محمد عليه الصلاة والسلام بوسكيس هدي درين كينا ما أنت أنكم مشغول إنه درين مياشا إن هذا كينا مقل كينا فكر كينا عرق كينا أنكم مشغول إن دلالك النبي عليه الصلاة والسلام أوتوماتيك لإيمانك حقيبه إيمانية قلبه إيمانية شركينا أوامرت إلهي وحنبارية لا سمح الله قفك لكن هدو أرنتها كالسيعظة 40 بانبحي أما أفر بريد بانبحي هل كان لقلت أجنان مالو دلالك والله أنا الترقي سيدا كل سعتد إيه أنا الهوس سعتد وحبك مدحيا مركا الدلاشد والترقيين إذا قربا سعنيس
marka dadaalka aad faraha ka qaadidna hoos buu qofkii aadaya. haddii qofku markaa juhdiga nabiga sala allahu alay wasalam uu faraha ka qaado iimaankii qalbigiisa ku jiraba shay-an fa shay-an banaanka imaanaya. shirkiina awaamirta ilaahay markaa ma qaadan karo. sheekh yuusuf isagoo arrintaa iyada ah axbaabta fahamsiinaya wuxuu yidhi nabiga ku saliya sala allahu alayh wasalam ninbaa alaab qaali uu soo iibsaday buu yidhi, markaasuu gurigiisa meel kamiduu ku xasiyey. ma maqlo, ma arko, ma ursado. muddo kadib isagaa u baahday alaabta iyada ahayd, laakiin kuma soo dhicin alaabta adaa meeshaa ku xaseeyey. maxaa dhacay? dareenkiisiibuu ka saaray, kama hadlo, kama fikaro, wuu xaseeyey, meel buu ku xaseeyey. muddo kadib isagii soo iibsaday baa dareenkiisii alaabtii ka baxday, qalbigiisina way ka baxday. markaa maalin maalmaha ka mida isagoo wax kala doondoonaya ayuu shaygii isagaa ku soo baxay. markaasuu wuxuu yihi allah, muddo dheer baan kuu baahnaa, laakiin dareenkaygana waad ka baxday, qalbigeygana waad ka baxday. muddo dheer ayaan kuu baahnaa, laakiin dareenkayga waad ka baxday, qalbigeygana waad ka baxday. sheekhu markaa wuxuu yihi shay mushaahado ah oo maanta aan soo iibsanay oo la taaban karo oo la ursan karo ayaa sheegiisii markaan joojinay qalbigeena ka baxay. ee fa kayfa rabbulciza walaalayaal ka warramo. shay mushaahada waa shay la arki karo. mushaahadada waxaad taaban kartid ood soo iibsatay ayaa sheegiisii markaad joojisay qalbigaaga ka baxay. ee ilaahay jala wacalaa waa qeyb. haddaan maanta ilaahay sheegayno ka hadlayno cinda alxaaja qalbigeena ma imaanaya cinda alxaaja marka xaaja ay kugu dhacdo ilaahay waxaa weeyaan bas war ilaahay waxaa la doonayaa inaan la noolaano. dacwadu waa maxay? iimaanku walaalayaal, salaadu waa 5 salaadood, waa 5 waqti. soonkuna sanadkii waa bil. xajkuna waa ninkii awooda, zakaduna waa ninkii awooda. laakiin iimaanku waa imisa saacadood baa lagaa rabaa? iimaanku waa laxdo kasta inaadan dhiman. yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. laxdo kastaa la rabaa iimaankaaga inaad ilaalisid. waa inaad iimaan nafteeda oo iimaanka hawaayin wey. jamaacad hadda ku hor waxaan xasuustaa bakistaana tadxiyaadka juhdiga nabiga marka maanta sanadka ay soo baxeen. jamaacada tanzania timid, markaasaa waxaa la yihi ninkan saaka ayaa qalliin lagu bilaabayaa, maskaxdiisu waxay soo noqon doontaa 10 habeenimo. dhakhaatiirtiisaasi yidhaahda waa la qalayaa, fahamkiisu 10 habeenimo soo noqonay. ninkii isaga ahaa wallaahi waxaan u tagnay subaxii, adigu waxaan umaleeya 7 subaxnimaa la qalay, qaliinka lagu bilaabay 10 meelahaasaanu u tagnay. ninkaasi muxuu leeyahay? maskaxdiisu waa maqan tahay, laakiin qalbigiibaa guuxay. wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah, allahu akbar, laa ilaaha ila allah, allahu akbar. bal hadalkaa ka warran. waa jamaaco sanad socota. akhi, marka juhdiga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu doonayo waa maxay? waxaa lagu doonayo waxaa weeye, waxaa lagu doonayo cilmi, waxaa lagu doonayo waa macrifada ilaahay qalbigaaga inay timaado. istafaada min qudrat illah waa macrifat llahi fi qalbi linsaan. qudradda ilaahay inaad ka faa'idaystid maxaa aasaas oo waa in macrifada ilaahay qalbigaaga timaada. ambiyadu dadka ilaahay u yaqaana ahayn, mar walbo ilaahay wax weydiistaan ilaahay fastajabnaa lahu buu lahaa. ilan yaqiinta xaggee laga bartaa? sheekh sacad wuxuu leeyahy yaqiinta 5 meelood baan ka baranaynaa. 1 qisaska ambiyada yaqiinta waa ka baranaynaa. qisasu saxaabaan ka baranaynaa. aayaadka iimaaniyaadka ka hadlaya ayaan qur-aanka ka baranaynaa yaqiinta. sida inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أحاديث تنمي إيمانك كهريسة. ما الإيمان بالغور بالكسور؟ إذا أسرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. haddii wanaagga aad samaysay uu ku farax geliyo
xumaantuna ay ku murugeliso mu'min baata maanta xumaanta aynu samayno ma ina murugelinaysaa walaale wanaagga aan samayno kam intee wayna farax gelinaya markaad soo tadxiyotida maanta jawla intiqaaliya aada soo qaadid xaafadaadi oo dadku ilxun kugu eegaan caawa markaad sariirtaada timaadid intiqaaliga ilaahay qalbigaaga raaxuu kusoo tuuraya raaxa iyo dumaaniino maxaa dhacay dhibkii maanta kugu dhacayba ilaahay wuxuu kugu bedelayaa hadalkaa nabiga sala allahu calayh wasalam marka wanaagga aada samaysid uu ku farax geliyo xumaantuna ay ku murugeliso mu'min baa tahay marka iimaanka waxaan ka baranaynaa juhdiga ambiyada juhdiga saxaabada ilan qisaska ambiyada ilaahay uu leeyahay faistajabnaa lahu wanajaynaahu min algami wakadalika nunji lmu'miniin waa qisaska ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala yaqiinta uu kaga hadlayo qisasu saxaaba ayaan ka baranaynaa yaqiinta maxaa dhacay noloshooda waa diin weey nolosha saxaabadu walaalayaal wax fudud ma aha allahayna fahamsiin marka ilaahay qudradiisa inaan ka faa'iidaysano asaas waxaa u ah in macrifadaasi kuu ziyaado qalbigaaga macrifadaasi ku ziyaado macrifadaas goorma kugu siyaadaysaa marka aada ilaahay mar walba cadamadiisa bayaanisid ilaahay ka hadashid waxaa ilaahay ka soo hara yaraysid maanta afkii waynu tolanay hadalka ilaahay laga hadlayo waynu ka xishoonaynaa daaciga waxaa la doonayaa yaa daaciya culimmadu yidhaahdeen waa ninka meel walba ka hadla qof kastana la hadla xaalad walbana hadla yah meel kastuu ka hadlayaa qof kastana wuu la hadlayaa xaalad walbana wuu hadlayaa wakti walbana wuu hadlaya ninkaasaa daaci ah kan la hadli maayo maaha maxaa dhahay hebel weyn waktiganna hadli maayo arrinta hadal sidii hore ma aha la waa inaad xaalad walba waa inaad hadashaa daacigu meel walbana waa inuu ka hadlaa xikmadeeday leedahay xikmad laga tegi maayo laakiin waxaa loo baahan yahay daacigu waka addaaci daacigu isagaa wax saameeya lama saameeyo lidaalika sidaa la ajligeed baa walaalayaal yaqiintaas inay qalbigeena mar walba ay ilaashanto waxay u baahan tahay walaalayaal juhdiga nabiga sala allahu calayh wasalam inaad yaqiintaada aada ku dhistid ilaahay jala wacalaa qalbigaaga markuu kula weynaado maxaa kula weynaanaya amarka ilaahay baa kula weynaanaya maxaa dha istafaada min khazaa'in illah wa imtihaalu awaamir illah khasaa-inta ilaahay inaad ka faa'idaystid aasaaskeedu waa maxay waa amarka iyo nahyiga inaad ku toosnaatid maxaa ilaahay iga rabaa inaad tiraahda xaalad kasta aadan eegin tolkaa maxay rabaan maxaa xaasku doonaysaa maxaa awlaadda waxaasoo dhan waad eegaysaa laakiin amarka ilaahay iyo amarka xaasku hadday isku hor yimaadaan waa inaan amarka ilaahay hormarina amarka tolka iyo amarka ilaahay hadday isku hor yimaadaan waa inaan amarka ilaahay ilaalina idaa tasaadama alamraan qudima alaham laba amar markay isku hor yimaadaan kii ahamka ahaa muhiimka ahaa baan qadimayna awlaadaadu waxbay doonaya ilaahayna waxbuu doonaya waxa ilaahay doonaya mar walba waa inaan u sheegna walaalayaal khasaa-inta ilaahay goormaan ka faa'iidaysanaynaa waa marka amarka ilaahay uu nala weynaado hadda juhdiga nabiga sala allahu calayh wasalam waa amar hadda baryahan aynu ka soo baxnay ilaahay muxuu ina tusaya tadxiyaadkii nabiyullaahi ibraahim iyo haajira iyo ismaaciil waittakhada allahu ibraahiima khaliila ilaahay baa nabi ibraahim khaliil ka dhigtay ilaahay baa reerka waa qudwa ilaa yowmi alqiyaama uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa maaha 10 maalmood baa la soomay saasay nagu dhaafeen arrinku maaha 10 maalmood ahmiyad bay leeyihiin ummaddan ilaahay waxbuu ka rabaa wajaahiduu fi llaahi xaqa jihaadihi huwa ijtabaakum wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj millata abiikum ibraahim waa dhaqankii nabi ibraahim ilaahay 10 maalmood maha inay sidaa nagu dhaafaan hooyadii baa amarka ilaahay istislaam aabihii baa istislaam sameeyey id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin ilaahay baan u hoggaansamay buui halkaa dhig baa layidhi ugana dhaqaaq hooyadii markuu dhigay ayay tiri ma ilaahay baa kugu amray haa ilaahayna dayiic maayo iska tag bay tiri eg su-aal bay weydiisay ma ilaahay baa kugu amray haa ilaahayna dayiic maayo iska tag
ilmihii yaraa markuu usoo noqday ee ilaahay ku riyada manaamka la tusay, manaamka ambiyaduna waa waxyi, isagoo ismaaciil gowraca aabba saasaa laygu amray maxaad ka leedahay? yaa abati ifcal maa tu'mar buu yiri, satajidunii in shaa allahu min asaabiriin. aabba wixii lagugu amray samee. waa qudwa ilaahay marka muxuu ka dhigay maxaa allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim. maxaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo aala muxamed aan ugu baryaynaa in loo naxariistay sidii loogu naxariistay nebi ibraahim iyo aali ibraahim. salligu waa naxariis wey, waa qudwa ilaa yowmi alqiyaama. maxay qudwo inoogu yihiin? tadxiyaadkay qudwo inoogu yihiin. nebi maxamed oo khayru khalqillaahi baa lagu leeyahay, adiguna dhaqankii nebi ibraahim qaado. ummadana waxaa la yidhi halgankaasaa laydinka raba. lidaalika sidaa la ajligeed halgankaa laynaga raba walaaleer. 40 baan baxay iyo magaciisi baan baxay, khalaas 3deedii beri waa baxay. intaasi ma ku filantahay? ilaah bayna ku dhaarshay. baabilka maanta caalamka jooga xaqu inuu ka qaalib noqdo muxuu u baahan yahay? wuxuu u baahan yahay waa tadxiya. magarad horta inaan fikirkeena bedelno oo ninka daaciga fikirkiisu fikir caalami ah oo noqdo. magarad fikirkaagu waa inuu bedelma, waa in fikirkaagu caalam noqda. nebi maxamed naaibkiisii baa tahay, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. nabigu ummadda markuu laadayay muxuu yihi adduu canii raximakum allah. fikirka abubakar radia allahu canhu ardaah ummadda uu ka yaqiin badnaa, uu ka tadxiyaad badnaa. abubakar laydinkama fadilin ayaa hadallada qaarkood ay leeyihiin, afarku uu leeyahay, saxaabada ay leeyihin abubakar wax kalena loogama fadilin, soon badan iyo salaad badan, bal yaqiin uu naga yaqiin badnaa. ilaan markii nabigu calayhi salaatu salaam geeriyooday ummaddu waxay noqotay walaalayaal, ummaddu waxay noqotay sida arig roob ku da-ay oo kale. nabiga calayhi salaatu salaam intuu u yimid cumar oo masaajidka ka qaylinayo lacallaa ninka yidhaahdo nabi maxamed baa dhintay. nabiga daboolka markuu ka qaaday wejigiisii fayday ayuu yidhi dhibta xayan wa mayitan, adoo noolna waad udgoonaatay, markaad dhimatayna waad udgoontay. cumar buu fadhiiso masaajidku soo galay, markaasuu ilaahay jala wacalaa markuu ammaanay nabigana sala allahu calayh wasalam ku saliyey ayuu yihi waa dhagaystu yiri man kaana yacbudu muxamadan fa ina muxamadan qad maat. waa ninkii nabi maxamed caabudayo nabi maxamed uu dhintay. waman kaana yacbudu allaha fa ina allaha xayun baaqi. ninkii ilaahay caabudayona de ilaahay waa xayun baaqi. aayadahana marka akriya wamaa muxamadun ilaa rasuul qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa caqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi allahu shaakiriin. nabi maxamed wuxuu ahaa nebi hortiisa ayaa ambiyo badani ay tagtay, haddii la dilo amaba uu dhinto ma ciribtiinibaa dib ugu noqonaysaa? ninka ciribtiisa dib ugu noqdo ilahay waxba yeeli maayo. mar walba ilahay wuu abaal marinayaa, wasayajzi allahu shaakiriin. dadka shaakiriinta ah ee ilaahay shaakiriintu waayo waa dadka juhdiga nabiga sala allahu alay wasalam qiimeeya, fikirka nabiga xambaara, dareenkiisii qaada. ummadda marka waxaa la yihi qalcad buu ka saaray xaaladaas saxaabada ay ku jirtay. waxaa la yihi saxaabada badankooda maxaa abubakar salaadii iyo soonkiibu waxaa la yihi abubakarow cumar baa ku yiri iyo saxaabada badankooda ra'yigooda wuxuu noqday aan ka aqbalno salaada, zakadana aan ka dayno. gadaal bay kala imaan doonaan. abubakar ra'yigii markuu dhageystay ayuu cumar laabta ku dhuftay uu yihi war waktigii jaahiliyadana nin jabbaaraad ahayd oo geesi ah, ma maantaad fulay noqonaysa? wallaahi buu yihi iska daa neef inay reebaan, xadhiggii ay hogaankii ay soo raacin jireen hadday reebaan wallahi waa la dagaalamaya. markaasaan gartay buu yihi xaqii in qalbigiisa ilaahay ku sharaxay. marka abubakar muxuu fahmay baa la yihi, ummadda kaleeto markaan muxuu fahmay? wuxuu saxaabada kale wuxuu ahaa baa la yihi ninka noogu fahamka badan. abubakar wuxuu fahmay, saxaabadu waxay fahmeen nusradu inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la socotay, laakiin abubakar ummadda wuxuu fahamsiiyey nusradu inay juhdigii nebi maxamed la socota calayhi salaatu wasalaam.
ما دام إلهي جل وعلا جهدك أموده جهدك هدان وابنه قرقارك إلهي بأمعين النقول إياه أمدان هدان مقرد هدان إيه قرقارتان أنا وانا من قرقاري قرقار كاس مركز سيدا لأجل ولا لا جهدك وحوب بأنياي إنه من صفاتك مطلوبك أها يقينتين إنا نبدل بأنياي إنا أوامرت إلهي كنت وصنانه حالة كستا منك داعية وحال دوني نظر كيسو إنه إلهي النقض إلهي غير كيسو إنه النقض إنه إلهي يكتب حالة كستا وكبرت ما ديان إيجينا إلهي من إيجينا إلهي بر وحاجبه إلهي أشربه ومشاكل كاغا أدبو أبقبتب إلهي أشربه إلهي سبحانه وتعالى إسلا وحوال بحلكيس حلكو قعنتيسو كتره حالكو إلهي قعنتيسو كتره مركز سيدا لأجل أي جهدنا وحالا نقربا ولا ليال عواطفتا علمدو وحيلين عاطفتا جهدنا نقربو وهل عاطفة وقر عواطفتا خلدن ودن وإنا نقرب حدا أمد من ماذا؟ جهدنا أمد منه ونقربا أمة نبي محمد عليه الصلاة والسلام غير مدرسة نبي محمد أمد مدرسة عليه الصلاة والسلام أمة ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة أمة بما جهدنا ويحون أمره نبي محمد صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي بولس وصهيب الروم بولس وبلال الحبشي بولس وأبو بكر القريشي بولس أعداء الأمة ما أنتم مركز دوني يعني إنك قيبيان محاين وقيبيان شيخ إبراهيم محوري ومدى مركز نيفك اللي قول أيوه إلا أفرتا حديد لقوله نيفك حلال من نقله أفر حديد مركز اللي قولهم بنيف كاس وحلال حلالو بي داعبنا أفرتا حديد وين يسكب قوله هل حديد وين أفرتا حديد ورت قوله أفرتا حديدنا التضعيهم بيكوكو الكرام وامحي إنك اسكو قبيلة إنك اسكو ودنا إنك اسكو لقدة إنك اسكو صورة اسكو مذبة وحاسو من أعداء الإسلام مركز دوني الأمة إني صوت حقلان ساسي كوكا لقيبيان divide and rule وحي كوكا لقيبيان إذنك اسكو قبيلة إذنك اسكو ودنا إذنك نبي محمد أمد بكتب عليه الصلاة والسلام إنما المؤمنون إخوة مؤمنون توايو المسلم أخو المسلم حاجة عبد الوهاب نمشي سمارنتي كواد بيان كيس عندك هذا الكيس وحوها باي هم باكستانيين هي هم هندوستانيين هي هم مسلمان हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और हमारा काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम अनगा हिंदी में नहीं दूर पाकिस्तान में नहीं बश्तून में नहीं पंजाबियन में नहीं अमर मुस्लिमीन बाना उम्मत नबी मोहम्मद बन कसेन है شغلنا وشغلنا محمد عليه الصلاة والسلام باعي وما أنت مركز اللي يديه وحول لسوا بيضي أنا وريري ولا وأنا مسلم كفان مسلم لماذا كفان مسلم لماذا قفك الداعية وأنا مسلم هذا مسلم باناي مسلم لماذا وأنا كداغلا قفك ولالك مسلم كأهنا وأنا تستغير قيمة يساوى قف مسلم لماذا صحابة عواطفت نبذل وكسروا عاطفة عواطفت خلدن جهد يعني ما قال كرا الله ينجب البادي أنا وضم شيخ أولي شيخ سعد غزوة مريسية نبي صلى الله عليه وسلم مكروفا كابداعي عبد الغالي جوين وصوت فرستي أنا هوشة والربا مكروفا كينا ما دعي إيه صوت منطقة غالي يتوى صوبة قبالك قدر مركا عجيبني غزوة مريسية من أنصاري من مهاجرة دقالما منك أنصاري هذا اللي حوض بطعيل باميل وعدي مركا سوري يا للأنصار مهاجر كينا مركو أركا أنصاري إنا سوك عذبير يا للمهاجرين نبي كل أجر عليه الصلاة والسلام توصى ويغيبير ورم الدعوة الجاهلية تسوء الإنسان ونحلين كجرة وردعوها فإنها منتنة واركتبوا روحا ووعوري
sheekhu wuxuu yiri labadan lafdi ee muhaajiriin iyo ansaar waa laba lafdi oo maxbuub ilaahay jecel yahay laakiin markii habar wacasho loo isticmaalay nabigu wuxuu yiri waa wax uraya ka taga laakiin nabigu wuu isticmaalay alfaadan غزوة حنين النبي محمد باير يا للأنصار ويا الأنصار وأنصار لكن تاسمحيت ولنصرة الدين دين بوقر قاري يا نبي هبروا عشان معين لذلك اسمها لأجل عاطفة عواطف خلقا وأنا إني ربنا نقبح هذا عاطفة ما قرأت على عاطفة وأنا تماضى عاطفة أوثق عرى الإيمان والحب في الله والبغض في الله تدك إلهي درته وجعله وكاد نعي سيدنا إلهي درته ونا عاطفة لا صار لي نقربها ولا لا إنه من أين نقولنا عمل كان أساس كيس وشورى وأصول وباعة ومتى نسماه غزوة أحد نبي يقولوش الصحابة وحيد محان سمينا لما قالوا يقولوا لنا كنت ولا خارج كيف عبد الله بن أبي بن سلول رأيه وحيولي ما قالوا يتبدل عن دجالك قلب ما قالوا يبدل أنا كنت قال النور ما قالوا يبدل عفوا ما قالوا يبدل أنا كنت قال النور نقول فيصلي بردوا فيصلي وحيولي مرحب بهذا الكيجيب اللي مغلوها لو كنا من ديارة هاي تضرب بقلب وقوست تضرب بقلب مربع هذا الكيجيب اللي مغلوها يقول أنا يا هري رجنا والله هري رجعت حالي ميدانكي مسامين لكن ميدانكي محاسامي كنت مكينين النبي هلكا سعري بورت وكيرو حدو احنا قلنا عن حسود دقينا هلكا حكي سود دقينا مر الله مركي خلاف كاسي من اميرنا وسمي اللي غنيمته هوشوا بالوكر كعيلنا اجتهاد بيكاحد اي سود دقين صدن اي تضلو محاد عاي ولا لا ويشي وحي سبب شيء هزيمه إن شبه ما ضدك المسلمين تعجبوا أو كل عضو وخالد بن الوليد انتو قيالك صبحه صدح يطلون كينا ويجينا هلكا أي شهادك وقاتان نبي محمد إيه الصحابة دينا قلها انت اللي قصوا الضرب درت لقى عصلي يعني محين نقول قالوا وحن مركي إلهين إلهي ما أجوابه وحال ويري قرقارك إذنك أيها قاطي قرقارك إني لكي قورما قرقارك إذنك تهي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أسباب تفشل كتين طوام حي والتنازع لحدين والمرمتين ما قلت لحدين التنازع باي مدواس خلافتين والمرمتين وعصيتم عصيان باي من الله ولرسوله عدم الإضاعة بعيشة محمد عمر بارم بروحول يجري أفرت الصفات نصرنا إلهي كتب توام حي تنازع مرم بايمد إلهي رسول كيسينا ولا عاسيي أرنتك عدم الإضاعة ملكنا لما أضيعن أرنت أفراد ماشي صوب حبينا حب الدنيا تعال أفرت الصلوات دول ما لا نصرنا إلهي وسيسا الله ينعم الباب تسمع الأجل ولا ليال عواطفتا قلبنا ولن أنا ينقب حضور هل عاطفة اللي باهي عاطفة هجرة إلى النصرة هجرة إلى النصرة لبدا عاطفة ومحبوب إلهي أكتيسة والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وحاول ينقدون يا لبدا عاطفة هجرة أو دينت وقت ليلة أين السنة علماء ما أنت وحيلين عاطفة ولا إذا كربوا تبوت هذا ما أنت اللي عن جوجنا اجتماعي شيخي نظام الدين كي مدحور وحال الرباه لح بلاد سنويا إني والببحيه حتى أفرت بلاد بالسكلة قبل الولي دعوتنا لص أنا سمع